بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمدي tobanaad cinwaankeedana uu yahay fadlu الducاء في رمضان ilaahay in la baryo في kuli shuhuur waa wax weyn weeyaan ramadaan maba kusii jirtaba taas baan ula jeednaa maahayn ramadaan bay alla bariga ku eg tahay taas uma jeedno waxaan shaki ka lahayn cilaaqada ay ducada ramadaan la leedahay wax la wada ogyahay waaye liannahu qasadka daacada loo badsanayo waxay tahay waxa la raadinaya in la helo oo ilaahay dembigiisa inuu kuu dhaafo dembiga adiga aad gasho ilaahay inuu kuu dhaafo waxaad doonaysa ilaahayna aad ka heshido jannadii iyo raalinimadiisa iyo aragtiinadiisa oo qiyaamada ku aragtida marka wasiilada intaa lagu raadi kara waxa weeyaan waxaa ugu weyn waa ducadood ilaahay ka barido danta aad leedahay ilaahay u sheegatid walidaalika ducada inay ramadaanka cilaaqa la leedahay waxaa kugu daliil ah aaya oo min aayaati ducaa ah yaa waxaa la dhex dhigay bayna aayaati asiyaam yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu aayaadkaas markii ilaahay uu soo sheegay yaa waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun haddana yaa la yiri kadib baa haddana aayaati siyaam lagu laabto uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum taa waxay tusinaysaa in ducada ay tahay meesha ay ku habboon tahay bisha ramadaan in lagu aadiyo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay in ramadaankii iyo kayr ramadaan aan baranno tan aan barino tanna aan si gooni ah aan mudnaan siino yaquulu tacaala waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacalahum yarshuduun ilaahay wuxuu leeyahay nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddii addoomankayga iga kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa fainii qariibun inaan u dhowahay ujiibu dacwata daaci ninkii i baryana aan ajiibayo goorma idaa dacaani marka ducada inay madluub tahay waxaa kugu daliil ah niman wax baryan maxaa la siiyaa ujiibu dacwata daaci mataa idaa dacaani hadduu asiga i barya baa leeli falyastajiibuu lii ha iga ijaabo dalbaano ijaabada markaan aan siinayo dariiqeeda ha u soo maraano oo waa maxay dariiqeedii walyu'minuu bi horta inaad ilaahay rumaysan tahay in aad shuruudii oo ducada aad soo buuxisadoon sheegi doono inaad xalaal quudasho tahay inay ya-si kugu jirin inay qatiicati raxim ku jirin wixii soo dhammaystiro lacalahum yarshuduun macnaheedi waxaa weeyaan wixii aad raadinaysaa lagu siinaa marka in lagugu hanuuniya yaa la rajayna insha allahu tacaala marka ducada waxa weeyaan bixaddi daatihi buu cibaadaba iska tahay ducada markiiba laga reebo waxaad dalbanaysa in lagu siiyo inaan lagu siinin inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala baridisid baaba ood baridid baaba ducaabad cibaado ah lianna waxaad muujinay markaad ilaahay baryaysa addoon baahan oo daliil ah inaad tahay aad horta muujinay waxa weeyaan cubuudiyadii baad daahirinaysaa fi lmuqaabilna ilaahay inuu yahay alla kamaal iskale oo khani ah oo addoomankiisa waxay ka baryaan sii karo marka adigana dacfi baad isu qiray ilaahayna kamaal baad u qiraysaa sidaas daraaddeed ay ducada waxay ku noqotay cibaado intaanba la gaarin waxa aad dalbatay inaad heshid in kale qaala tacaala waqaala rabukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin nebi maxamed waxaa lagu yiri waxaad ku tiraahda dadkaas u sheeg qaala rabbukum wuxuu idin yiri udcuunii astajib lakum ibarya aan idin ajiibe markaasaa la raaciya lihi kuwa aan ibaryaynin oo ilaahay wax uga manbaahnin dhahayo jahannama u diyaaray ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii yani can dacwatii ilaahay inaad baridis haddaad bu aragtidba inaad ilaahay aadba ka kaaftoontid waa gaalnimo wa ilaahay inaad ka kaaftoontid ama ilaahay waxaad ka dalbay uusan ku sii karin waa gaalnimo marka waxawaay sayadkhuluuna jahannama daakhiriin ayagoo dullaysan ba ay galayaan jahannamadii marka maadaama ay ducada tahay ilaahay in laysku dulleeyo
yaa la rabaa alfaada ilaahay aad ku baryaysana inay ka muuqato dulligaas ee sidii aan hore u soo sheegnay taraawiixda ducada la tajwiidinayo oo sawdka sida qur-aanka loo ekaynayo taas ma aha waa taan soo niri udcuu rabbakum tadarucan wa khufyatan sidaasaa asalka ay tahay dadka saalixiinta ah oy ambiyada ay hurmuud u yihiin ilaahay bay mar kastaba baryi jireen leyla nahaar inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaba warahaba wa kaanuu lana khaashiciin fiiri sidaasaa lagu yaqiinay waxa weeyaan khayrka horta way u degdegayaan ducada in lagaa ajiibo waxaa ka horeyso inaad tahay nin ilaahay wuxuu ku faray fulinaya marka ugu horeyso laakiin nin caasi ah oo salaad dukanayn oo zaka bixinayn oo waxa aan jirin oo muxaramaadka aanan ka reebtoomaynin inuu ilaahay dembigaas iga dhaaf inuu yidhahda ma horta ba isa soo saxa lagu leeyahay wayadcuunana waa inana baryayn ragaban wa rahaban ragaban fi lkhayri ilaahu waxaasaan kaa raadinayna alragbatu fi shay talabuhu fiihi waa warahabanna cabsi wa kaanuu lana khaashiciin fiiri markaa cibaadada ilaahay bay isu duleynayeen markii wixii la faray ay samaynayaan iyo markay alla baryaan badad dulisan waa rabbanaa aatinaa fi dunya xasana saasay leeyihin ayb marka ducada saasay muhiim ku tahay bal waxa weeyaan qof kasta oo maanta joogo waxna waa ka cabsanaya waxna way haystaan dariiqada keliya ah waxa aad ka cabsanay uga badbaadi kartid waxa ku haystana aad isaga rafcin kartid waa ducada walidaalika warada fi اlathar laa yaruddu alqadaa ila adducaa walaa yaziidu fi lcumri ila albir wax soo dega qado ilaahay uu xukmiyo wax dibkaaga celi kara duca waay waa adoo xanuunsan hadda maanta maalan marad corona ba ayaa socda waxaan leenahay ilaahu maradkaa dhinac naga mari ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ducadeena noo ajiibo uu naga wareejiyo xataa markii hore haddii nagu qadarneed waxaa dhici karta hadday alla baryaana yaan lagu ridin hadday alla bari waayaana ha lagu riday inay saasba qadaha ilaahay kusoo fulay markaan annaga aan barino ilaahu naga wareeji aan idhaahdo marka sababtii baan la nimid ilaahay wuu naga wareejinaya insha allahu tacaala marka ducadii sidaas bay u qiimo badan tahay laakiin qabla intaadan ducada gaarin waxaad cunaysid iyo waxaad cabaysid iyo waxaad guntantahay horta iska fiiri hadday kuwa khaldan yihiin waxba laga ajabi maa sidii xadiidkii ruba rajulin yutiilu safara ashcatha akbara yamudu yadayhi ila asamaa yaquulu yaa rab yaa rab ninkii safarka dheer soo galay oo maka yimiday oo gacmaha kor u taagayo ilaahu dembigii dhaaf dhahay markaa raashinka u cunay iyo wuxuu cabayo iyo wuxuu guntan yahay kulligeed waa xaraam fa anaa yustajaabu lahu taa lagama ajiibayo marka isa sax horta marka hore isjeegaray taasaa ugu muhiimsan midda labaad oo laga rabo dembi ha ku ducaysanin ina tira ilaahu rabbi waxaan ka baryaa ninkaas fulaan ina dilaan doonayaa ilaahu imakani macsi waa ithmi waay ilaahay ka ajiibi maayo qatiicatu rahim nin oo aad qaraabatiin ama aad watiin aad leedahay ilaahayow ninkaasi aniga meelna ha isku kaan kulmayna kala fogey ducadaas sax ma ah mana laga aqbalay ayib waxaa ka sii muhiimsan waxaasoo dhan inaadan ilaahay waxaan ahayn aadan barin ilaahay dacwada u kariyeel waxaan asiga aan ahayna ha baryin wax asiga aan ahayna ilaahay ha ku darin man camila camalan ashraka fiihi gayri taraktuhu wa shirkaba xadiidkii qudsiga ah ninkii camal sameeyo oo aniga iyo dad kale na wadaajiyo wuxuu iri ilaahay waa u tagaa wax layla leeyahay ma rabo wax keligiis u leeyahay alaa lilaahi diin اlkhaalis diinta gaarka abuu ilaahay doonaya addoon khaalisa oo ilaahay keligiis wax ka baryay markaad dad kale wax ka baryay ilaahay maad ka waxwayso waa kow markaad ilaahay iyo dad kale isla baryaysa ilaahay keligiis maa kugu filnaan waaye waa labo markaa ma dhici karto makhluuqa horta wax makuu keeni karaa jawaabti waa may ina aladiina tadcuuna min duuni اllahi cibaadun amhaalukum fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin dadka aad leedihiin waxana siiyaan oo aad leedihiin dad adinka idin lamid a waay marka imaa qofku lamida inaad aad leedahay wax isii waa layidhi fadcuuhum bal ha baryaana ayaga bal fadcuuhum baa layidhi iska barya bal adinka aan aragna falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin
bal hadda adoon adigu kula mid bal ka bariya roobna oo keen dhebela wixii oo ka yimaada hala arkay sax ma ah waa aadaabta suul adabay ka mid tahay ilaahay keyrkiisa inaad wax weydiisad ama inuu yahay kooka oo adiga kaasii hooseeyo dadaa nin dhintay ama sanam la caabuday qof dhintay oo asbatiisa haysato markaad qabri aad kortegayso leedahay waxaasaan kaa rabaa caruuraan kaa rabaa xoolaan kaa doonaya caafimaadaan kaa rabaa aad leedahay asigaaba kaa hooseeyo duca kaaga baahan oo noogala baahan yahay dadkeennii hore inaan ayaga u ducayno inaad asiga tiraa wax isii يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه وحويان دتكاس أيغا نو باهنا نغا uma baahan ducada aadaabta ay leedahay waxaweyaan dadka waxay u badan yihiin waxbuu ilaahay maanta ka barya galabta inuu helo doonaya mas'alada koonka saas ma ah koonka nidaam iyo qawaaniin ku socda ilaahay adigu waxa weeye dacwada ama alla bariga iska agdhigo kana sug asiga marka inuu ku siiyo inuu wax kale kugu bedela asiga jirta jalla jalaaluhu laakiin ilaahay dacawtu falam yustajab liha isku dhih saas hadaa tiraahdo waxay ka muuqanaysaa ilaahay inaad ka quusatay haddii qunuud min raxmatillahi u yimaadana waa gaalnimo laa tayasu min rawxillaahi inahu laa yayasu min rawxillaahi ila alqowmu alkaafiruun haddaad ba tiraahdo anigu ilaahay rajo kama qaba inuu ducadayda ii ajiiba haddaad tiraahdeed waa kuu dhammaatay markaa waxa weeyaan maalinkaasay kugu hartay ayib marka waxaad ogaataa yaqiin qaado ilaahay ninkii bari soo celi maayo waxaa weeyaan kama fi lathar ina allaha xayun kariim yastaxyi an yarudda cabdahu idaa rafaca yadayhi an yaruddahumaa sifran ilaahay waxaa weeyaan jala jalaaluhu uu ka weyn yahay inuu addoonkiisa alla oo waxa weeyaan ilaahay oo kariim ah oo xayi ah wuxuu ilaahay ka xishoonayaa addoonkiisa inuu gacmaha kor ugu taagto oo ayagoon waxba la siinana la soo celiyo maya ilaahay wax kariim waayo waxaad ka baridna waa ku siinaya walidaalika axaadiis saxiixa ku soo aroortay haddaad ilaahay baridid saddex khiyaar midkood unbaad helaysaa inaad wixii aad ka barid ilaahay ku siiyo inuu wixii kuu dib dhiga oo wax ka fiican qiyaamo kugu bedelo in wax kugu soo socdo dhib ilaahay u kaaga difaaca marka adiga marnaba bannaan dhici maysid marka waxaa lagaa rabaa inaad udcu allaha wa antum muuqinuuna fi lijaaba ilaahay inaad baridid wax inuu ku ajiibaya laakiin wuxuu kugu ajiibaya ilaahay asaa garana asaa ku abuurtay waxa maslaxa kugu jirto kugu ajiibaya ayib waxaad ku dadaashaa ducada nebiga ka soo aroortay oo min jawaamic alkelim ah ama qur'aan ku soo aroortay inaad badina aad xoogga saartid nebiga ducada ugu badan uu ku ducaysan jiray rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar haddaa intaa xoogga saartid wax ku dhaafaya maba jirtabo marka rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna rabbana laa tuzig quluubana bacda id hadaytana rabbana hab lana min aswaajina waduriyaatina rabbana qur'aanka in badanaa ka jirto waa inaad xoogga saartaa marka adiga waxaad soo samaysatay iyo waxaa nusuusta ku soo aroortay marnaba isla meel dhici maayaan walidaalika abubakr sidiiq wax ka fasaaxo badan carabtii waxaa weeyaan oo qur'aanka lagu soo dejiyey nebiga intuu u yimid wuxuu iri yaa rasuulallah callimnii ducaana adcuu bihi fii salaati ani ma dhihin anigaaba quraysh oo carabi oo ilaahay waxaan ku baryaa oo aqaan wuu heli karaa inuu duco samaysto laakiin wuxuu doonayaa duco fiican in la baro markaasaa waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ila anta fakfir lii makfirata min cindiga inaka anta algafuur raxiim ducadaas oo kale in laga seega ma ah liannahu abuubakrna ogeyd baa nabiga weydiiye waxaan ku ducaystay sheeg buu yiri midda kale oo si muhimka ah waxa weeyaan in dembiga uusan kula weynaanin dadka markuu ka jaahil yahay uu dembiyaal badan dad buu dilay macsi kale uu galay xoola buu dhacay wuxuu markuu dib isu fiiriyo wuxuu leeyahay ruuxaas waxay dhaafaa male aan wixii hore ugu sii socdo taas naftigeeda yaa qaab darro ah waxa weeyaan inaad ogaatid dembiga si kastoo u weyn yahay ilaahay inuu kuu dhaafi karo قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
adoomankaygu naftooda ku xadgudbo dembiyaal waaweyn la yimidow laa taqnatuu min raxmat illaah ka quusanina ilaahay naxariistiisa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay dembigoo dhan dhammaantiisa hal mar u dhaafi karaa maxaa yeelay sababtana inahu algafuur raxiim alla dembi dhaafis badan weeyaan gafuur waa mubaalaga allihii dembi dhaaf dembiga inuu ku dhaafo aad ay u badan tahay weeyaan ولذلك في عند الترمذي حديث صحيحة يا وحكو صار يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي بني آدم يا هبو هدي دنبي قال انتو بطو oo saxaabka samada u gaaray intuu yani ka gaaray badnaashadiisa haddana ilaahay aad tira ilaahu idhaaf ilaahay wuxuu ri ghafartu laka walaa ubaali dembiga waa weyn yeesay loogu dhaafaa ma dhahay waa kuu dhaafayaa buuri marka waxaa la rabaa inaad aad ugu dadaasho ayib waxa weeyaan adducaa bilxaal wax la yidhaahdo duruufta adiga ku haysato inaad magacaawdid ilaahay waa kaa yaqaana ilaahu waad ogtahay ilmahaygii gurigay joogaan maanta qado maha ilaahu wax ii sahal ilaahay wuu ogyahay ilmahada inayna qada haysa ilaahu gurigii baa layga bixinayaa sanadkan ijaarka waxa isaga bixiya male ilaahu isi inaad tirahdid waxa weeyaan addacwatu bilxaala la yidhaahdo ilaahu waan xanuunsanahay xanuunkaasaa igu dhacay adibadina way ka daaleen adiga unbaa ilaahu rabbiyow awooddaada ay gaari kartaa inaad iga caafisad iga caafi inaad tirahdid sunnatu alambiyaa wa nabiyullaahi ibraahim khaliil الraxmaan markii uu ilaahay baryay rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram ilaahu caruurtayda waxaan dejiyey waadi oo aanan lahayn wax nolol ah oo abuur iyo midna aan lahayn yaan caruurtayda ilaahu aan dejiyey buuri ilaahay wuu ogyahay nabiyullaahi aadam markuu zawjadiisa haajir uu meesha geynayay marka xaalkeeda waxay tahay wuu ogyahay marka inuu u sheego ilaahay uma baahno laakiin adiga waxaad cadaysanaysaa duruufta gaarka ku hayso yaa ducadaadi ku darsanaysaa nabiyullaahi zakariya markuu nin waayeel noqday ilmana uusan haynin iyo ilaahay u barye dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya qaala rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahu waan duqoobay buu yiri intuu hoos ilaahay u baryay oo hadal oo hoos u yaallo ilaahay markuu ku baryay nidaa'an khafiyan waxa anaga naqaano qaylida ma ah markaasuu yiri ilaahu lafiina waa i daciifeen madaxiina waa caddaaday anigana ducadayda aan ku bari kaama quusanin buuri ma quusanayo waxaan ogahay haddaan ku barya waqti kasta inaad isiinaysa marka qofka yaqiin inuu qabo ilaahay markuu baryaya inuu ducada ilaahay kuu ajiibaya inaad horta yaqiinsan tahay muhim jiddan weeyaan marka inaad ilaahay magacyaalkiisa ku baridid qul idcu llaha aw idcu araxmaana ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa markii aad ilaahay baryaysa magacyaalkii maalan dembi dhaaf aad ilaahay weydiisanaysa yaa ghafaar اغفر لي ذنوبي يا رحيم ارحم حالي sidaas inaad tiraahdo waa fiican tahay magacii ilaahay baad wax ku barida waa wax wanaagsan ugu dambeyntii waxa weeyaan ducada adiga naftaada ha isku adkayn waalidka u ducay waladkaada u ducay walaalaha u ducay muslimiintii hore u ducay dadkii oo dhan gaarsii sidaasaa la doonaya waxa weeye min ducaai saalixiin waxaa ka mid ah rabbana اغfir lana ou ilaahay qur-aanku noogu sheegay oy dadka saalixiinta ilaahay ka baryaan rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan muslimiintii oo dhan baad ilaahay u baryaysa in dembiga u dhaafo sidaasoo kale rabbi اغfir lii waliwaaliday caruurtaada rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina xaaskaadii caruurtaadi walaalaha sidaas oo kale waay marka qof kale oo walaalka ah ood ogtahay duruuftiisa inaad soo kaa maqan ilaahay u baridid kullu daalika waxay keenaysaa inta dad aad u baridayn ilaahayna wuu ku siinaa malag baa dhaha ilaahu ninkaan asna sii intaasoo kale marka ducadii waxa weeyaan axkaamteedii iyo suwarteedii waa badan tahay laakiin intaa yaroo khulaasada un baan aan ka gaarsiin wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullah